رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان وبرنامج aynu ku soo qaadan doono qaar ka mid ah axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. wuxuu abu hurayra ilaahay raalliha ka ahaadee ka warinaya nabiga sala allahu calayhi wasalama inuu nabigu sala allahu calayhi wasalama ramadaan kasta ka ictikaafi jiray 10 maalmood. markiise ay ahayd sannadkii la oofsaday wuxuu ictikaafay 20 maalmood. bukhaari ayaa wariyey. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.